bismillahi rahmaani rahiim saaxiibayaal soo dhawaada oo marka ay nuur aadan xali nuur adlaadi hadaba halkan waxaan rabaa inaan uga hadlo youtuberada caanka ah ee Kiila Bashiir iyo Warsame Bade dad badan ay ugu soo meeshin gariyay labadan qofood yani waxyaabaha ay inta badan soo dhigaan wax sax weeyeen balse horta waxaad ogaataan waxa ay soo dhigaan waa wax saxan ayaga lacag ay ka sameynayaan waxa lagu leeyahay hadii aad aragto bishii 2,000 ka sameey YouTube-ka 3,000 ka sameey 4,000 ka sameey waa laga sameyn karaa dadka sameynaya way jiraan laakiin ma fududa wax fudud ma ahan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ku wareersiin waxay tahay waxyaabaha la soo qoraayo inay yani ma aragtay yani mala abaal yihiin inay sax yihiin in kale runtii waxa aan taqaanaa taasna waxay u baahan tahay sideedaba waxa adduunkan ma jirto wax si fudud lagu heli karo marka hadii lagu dhaho si fudud ku sameey lacagtaas si fudud lacagtaas ku sameey ma yani wax fudud ma jiro ma aragtay marka adiga lacag laga sameynaya midaas ogaada inta badan youtuberada waxa waaye ama qof walba oo social media wax soo dhiga waxa aan taqaana waxa ay sheegayaan badan youtuberada wax saxan ma aha waxa jiro laakiin way jiraan youtuberada wax saxan sheega sida nin saaxiibkeego oo loo yaqaano ma aragtay Abdishkuur loo yaqaano iyo Yaasir marketer loo yaqaano ma aragtay yani anigu labadaas youtuber oo Soomaalida ma aragtay inta badan waxyaabaha ay soo dhigaan waa adkayn waa daawaday in badan oo ma aragtay yani waa daawan jiray labadaas qofood waxyaabaha ay soo dhigaan boqolkiiba ma aragtay 80 waa wax lagu kalsoonaan karo oo xaqiiqda ay ka hadlayaan laakiin labadan qofood oo youtuberada ah oo Kiila Bashiir iyo Warsame Bade hadee waxa ay sheegayaan waa wax saxan laakiin xogti oo saxan ma soo bandhigayaan dadka uma soo bandhigayaan waxay in badan yani xooga saaraan waxaan taqaana sida ay ma aragtay marka views ay ka heli lahaayeen mesela waxay ku leeyihiin koorsooyin soo diyaariyeen koorsooyinka ay diyaariyeen waa ma aragtay yani koorsooyinka dadka gatay xitaa waxa way qaar ka cawaada ay arkay marka waxay ku leeyihiin koorsooyinka hadaadan gadan xitaa website-kooda hadii aad booqato intaas ay lacag ka rabaan inay ka sameeyaan marka saas daraadeeda haba aaminin yani course wax free ee dadka yani ma soo bandhigayaan waxyaabaha saxan xitaa hadii ay jiraan kuma soo bandhigayaan yani sababtoo ah wax fudud ma jiro ma ahan qofku waxa laga yaabaa si fudud lacag ku sameeyo inuu soo jiito ma aragtay in lagu soo jiito laakiin aysan qaabka lacag social media loogu sameeyo wallahi ma fududo aniga runtii hadda web designer ahay freelancer ahaan oo u shaqeysta laakiin yani waagi hore marka ma aragtay aan daawan jiray dadka ma aragtay yani online ka shaqeeyo oo bishii intaas lacag ka sameey ma aragtay 300 ka sameey 400 ka sameey 500 ka sameey 1,000 ka sameey waa fiirsa waa daawan jiray laakiin yani markaan soo dhaxgalay waaqic dhabta ogaaday waxaan ogaaday inaysan wax fudud ahayn oo yani kaliya waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay waxa waaye inaadan maartay qof amra aadan ahayn oo yani subax kasta shaqada soo gal lagu dhahaynin oo subax kasta lagu xisaabtamaynin oo boss yani kula xisaabtamo uusan jirin laakiin ma fududa waxaan taqaanaa inaad internetka lacag ka sameyso oo lacag taqli badan ka saarato ma fududa jasa anigu waxa waaye taqaanaa waxa arkaa anigu wada badan ma shaqooyin kale ma qabto waxaan ka shaqeystaa online ka shaqeystaa si boqolkiiba waxaan arkaa dhalinyaro fara badan oo saaxiibadeyda familka ila waxaan taqaanaa oo aan waxba diidi karin oo hadana idhahay iyo ma aragtay online inaan ka shaqeystaa raba sidaada amal lacag fiican ka sameeyo hadana aysan bataatanba yani anigu waxaan dareemi karaa dadkan inay liiziyaal yihiin oo aysan online ka shaqeysan karin ma aragtay inta badan qof online ka shaqeeya hadaa aragtid waa qof waqti buray oo yani saacado badan samray oo fadhiyay waay ma aragtay marka waxa waaye ma fududa sida online ka lacag loogu sameeyo badanaa dhalinyaro waxaan taqaanaa waxaan sheegaa online ka lacag sida loogu shaqeeyo ma fududa qaabab kala duwan lacag loogu sameeyo online ka oo kamid ah dad waxa jiro ma aragtay entertainment-iga waana dadka ugu fudud isleeyahay ma aragtay lacag ka sameyn kara oo dadka influencer-ka oo dadka caanka ah inay muuqaalo soo duubaan oo yani ay bartooda soo geliyaan ayadoo naftirkeeda ma fududa muuqaalka in la duubo la soo jarjaro la edit gareeyo codkiisa la saxo colorkiisa la saxo يعني واحد dadku soo jeedin kara laga dhigo naftirkeeda ma fududa laakiin yani waa hab ugu fudud jista ani waxaan ahay affiliate marketer iyo web designer ahay ma aragti wax ma aragti yani fudud ma ahan
inaad yani custom heshid ayaa waxay kugu qaadanaysaa wax maaragtay waqti badan kugu qaadanaysaa. Just hadda aniga customkay waxaan ka keenaa inta badan Fiverr, Upwork iyo People Per Hour inta badan waan adeegsadaa, iyo Celia barnaamij inta badan waan adeegsadaa. sidoo kale waxaan u sameeyaa website u sameeyaa Soomaali fara badan. Marka waxa waa inaad audience dhisto ayaa waxay kugu qaadanaysaa horta waqti badan. anigu intaan website-ka website web design-ka baranayo, intaan web design-ka baranayo oo dhan waxaan sii dhisayay community fara badan dhisay ma aragtay, oo haddii yani social media ay tahay waxaan baranayay qaabka. sidoo kale waxaan la bartay web design-ka. markaa bartay kadib waxaan ogaaday inay xirfadaas keliya aan lagu shaqaysan karin, oo xirfad kale oo kaabaysa in la helo inay muhiim tahay. marka waxaan la bartay xirfad loo yaqaano graphic design iyo maaragtay waxa loo yaqaano digital marketing. marka intaas waxay iga kaabeen inaan yani customkayga iyo yani dadka macaamiishayda soo koobo. marka anigu waxa waa mataqaana qof hadda social media ku cusub yaa maaragtay dhinaca maaragtay affiliate marketing ha ahaato, blogging ha ahaato. horta blogging-kana maaragtay haddii aan wax ka tabto, blogging-ku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fudud ee social media la qabto. keliya isaga inkastoo dadaal fara badan ay jiraan, keliya qofka waxaa muhiim ah inuu yani qoraalo soo qori karo, web maaragtay position samaysan karo, qoraaladaas uu dad badan u share garayn karo oo dad badan ay akhrisan karaan, intaasuu lacag badan ka samayn karaa. waana waxaan isleeyahay wax ugu fudud oo lacagta maanta dhalinyaradu maaragtay ay ka faa'iidaysan karaan, oo lacag badan ay ka samayn karaan. laakiin qof yani social media ku cusub oo meel aan wax ka bilaabo aan lahayn, maaragtay yani qof social media ku cusub oo meel wax ka bilaabo aan haysan, waxaa u wanaagsan inuu maaragtay blogging ka soo bilaabo. blogging-ka muddo yar markuu ku jiro inuu waxyaabaha kale u soo gudbo. just ani web designer intaan noqonin ka hor waxaan in badan xooga saari jiray sida aan influencer ka noqdo, balse waxaa ogaaday dhankaas inaysan iga jirin, oo sheekadu ay tahay inaan ugu horeyn aan xirfad la imaado social media. xirfadaasna waa la imaaday oo hadda web designer aan ku faano inaan maaragtay in ka badan bishii aan soo 6 ilaa 7 website. dad waxaa jiro in ka badan 20-30 dhisaan, laakiin waa dadka yani in badan 10 sano 5 sano ku dhex jiray website-yada web design-ka ama freelancer-nimada. marka anaga haddii 4 aan helno way naga badan tahay bishii runtii. yani qof Soomaaliya joogo oo maaragtay maanta dhaqaale xur ee 4 website bishii heli karo, oo maaragtay ala website hadduu ku dhiso 120 ku dhiso way ka badan tahay bishii qof jooga. laakiin suuqyadaas waxa waa imtixaan. halka website waxa laga yaabaa inaad lacag ka badan 150 lacag ka badan inaad ku dhisto. qof way dadaalkiisa waa. marka saaxiibayaal intaad iska dhaaftaan humaaga dadkaas ay ku abuurayaan oo maaragtay si fudud lacag ku sameey iyo si fudud ma jirto. wallahi wax lacag si fudud lagu sameeynayo ma jirto. maaragtay sirta dhabta ah maaragtay qof kasta kuma sheegayo. marka saaxiibayaal horta social media xirfad la imaaw, ama influencer noqon, qof caan noqon oo caanimo raadi, ama yani maaragtay maxaa qof writer noqon. saddexdaas qaab social media loogu shaqeystaa, waana saddexda qaab ugu fiican waa isleeyahay. marka saaxiibayaal muuqaalkeen waxaan rabaa inaan intaas soo koobo. muuqaalkan ka dheer weligay Soomaali soo diyaarinin, muuqaaladii 3 daqiiqo iyo 4 daqiiqo ay noqon jireen. laakiin muuqaalkan dadka su'aalaha ugu badiya ugu talagalay inay ka faa'iideystaan, oo yani ay humaaga iyo waxyaabaha inta iska daayaan iyo maaragtay waqtiga badan ay iska dhuminaan, ay iska daalaan inay xirfad bartaan, xirfadaas ku shaqeystaan, ama caanimo raadiyaan. caanimo raadi waxyaabaha aad aan ku noqonayso dadka caanka ag fadhiiso, waxyaabaha raadi. yani dada waxa waa mataqaana in caanimada qof kale laga raadiyo waxyaabaha ceeb u malayo. laakiin just adi inaad shaqo la'aan ahaan lahayd, guriga fadhin lahayd, caanimada raadi oo maaragtay yani ka shaqeeyay sidaad caan u noqon lahayd, ama xirfad baro, ama writer noqo, website furo oo ka shaqeyso website-kaaga. website-ka yani qaabab kala duwan u furan kartaa. website adig ku gooni waa furan kartaa. yani waxaa ka bilaabi kartaa blogger ka bilaabi kartaa, oo blogspot inaad markaa muddo badan writer ku noqoto oo website-kaaga uu views badan helo. domain u iibsan kartaa. domain-ka markaad u iibsato waxaa mataqaanaa waa xataa marka qof oo maxaa views badan haysto, Google AdSense ku dalban ku xiranaysaa, Adstara ku xiran kartaa haddaad rabtid maaragtay views badan mar haddaa helaysid. waxaa mataqaanaa shirkado kula shaqaysta ma weynaysid. marka saaxiib riyada iyo malawaalka intaad iska daysaan saaxiibayaal,
bilaaba in qofku inuu wax qabtaa muhiim ma fahanteen marka insha Allah saaxiibayaal muuqaalkan intaas fursado maartay muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobaa muuqaalkan like-ta iyo share-ta la dhax si uu dad badan u gaaro waxaan rajaynayaa maaragtay inaad idinkana insha Allah saaxada social media soo birtaan qof walba oo jecelna insha Allah waa caawin doona aniga ahaan maaragtay yani sida dad badan oo ila soo xiriiray iyo dhalinyaro badan oo maaragtay aan caawiyaa jiro marka haddii website-ka ay tahay iyo haddii website in lagu dhiso ay tahayba insha Allah waa ka caawinaynaa nagala soo xiriir WhatsApp numberka dhinaca community-da saaran insha Allah soo dhawaad